السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلام يا صحابتك وحيرة جنالكي واني قاه ولكن عبد الله ما انتو حان دي ودا مقالات يؤاد عيس بدن كاسو عوان كيسو هاي من قرشين ينو محكمة جيو لودي سواليد سببتنا waxa ay tahay inaysan ogolaasho weydiin markii ay soo dhalayeen 27 jir u dhashay wadanka Hindiya magaciisuna yahay Rafael Samuel ayaa qorsheynaya inuu maxkamad geeyo labadiisa waalid sababtuna waxa ay tahay inaysan ogolaasho weydiin markii ay soo dhalayeen waa ganacsade ku nool magaalada Mumbai waxa uu BBC-da u sheegay inay qalad tahay in ilmo adduunka la keeno kadibna noloshiisa inta ka dhiman dhibaato u ku dhameysto waa uu fahansan yahay inay suurtagal ahayn arrintaani balse in la weydiiyo qof aan adduunka imaan balse waxa uu ku adkeysanayaa go'aankiisa talaabada noocan oo kale ayaa waxay khilaaf ka dhex dhalin kartaa qoys kasta balse qoyskan ayaa waxay u egtahay qaab maad iyo kaftan ah qoraal ay soo saartay hooyadiisa Kafita ayaa ku sheegtay inay bogaadinayso in wiilkeedu maxkamad geeyo isagoo labadooduba inay yihiin yaqaano Rafael ayaa maxkamadda ka codsaday in ay xukunto magdhow ay waalidkiisa uga qaadayso fikradda ninkan ayaa waxay salka ku haysaa aragti falsafadeed oo sheegaysa in nolosha ay tahay mid dhibaato badan sidaas darteed la iskaba dhaafo ma jirto wax faa'iido ah oo ku jirta nolosha dad badan ayaa dhibaataysan haddii bini aadamka laga dhameyn lahaa adduunka ciidda iyo xayawaanka waxa ay noqon lahaayeen kuwa faraxsan waxa saas yiri Rafael waxa uu abuuray blog Facebook oo afkaarihiisa uu ku gudbiyo ninkan asiga oo xiran gar maskarata ah dad badan ayaa aragtiyadooda ka soo dhiibtay waxayna kula taliyeen in asigu marka hore isdilo dawa sheeko aad iyo aad u cajiib ah waxaan filayaa inaad ka hesheen videogan please hadii ka hesho subscribe hadii janaadka ku cusub tahay sidoo kale comment like share ana iloobin inaad fikirkaada inoo soo dhigto qaybta commentiga thank you